gaashaanle sare Caydiid Axmed Nuur oo ka tirsanaa maamulka Soomaaliland ahaana taliyihii aagga Sanaag Bari ee Ceerigaabo iyo ciidan oo hogaaminaya oo ka soo goostay ciidanka Soomaaliland ayaa isu soo dhiibay saraakiil sare oo ciidanka booliska Puntland ka tirsan gaar ahaan taliyayaasha gobolada Sanaag iyo Highland magaalada Qardho waxaa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabdullaahi Maxamed Barre Caato iyo duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Ismaan Dheere inaanu ku soo dhaweyno Colonel Caydiid oo ka soo galay gobolada waqooyi galbeed ee la magac baxay Soomaaliland waxaanu u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed inaan Soomaaliya kala maarmin inay yihiin walaalo inay ku wanaagsan tahay midnimada inay ku wanaagsan yihiin wada joogga inay ku wanaagsan yihiin dhismaha dawladnimo ee qaran ee ummad Soomaaliyeed ah runtii waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtaba waa isku mid weeye laba kala baarmo waxaan leenahay midnimada Soomaaliya insha Allah waxaan rajaynaynaa inay noqoto hal mid waxaan leenahay soo dhawaada insha Allah taala ilaa kullu weeye waxaan rajaynaynaa inaan dhamaanteen gacmaha isqabsano taliyaha qaybta booliska gobolka Highland iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag gaashaanle sare Cabdirasaaq Faarax Warsame oo hogaaminaya sargaalkan ayaa iyaguna ka hadlay goobta taliyaha qaybta booliska Highland aad baan waxaan ugu faraxsanahay imaatinka Caydiid yimi gobolka Caydiid ma maqnayna safar buu ku maqnaa waayeen gurigiisa buu soo awalna safar buu ku maqnaa aad iyo aad baan waxaan uga mahadcelinayaa imaatinkiisa waa inaan dalka iyo dadku ka maarmin waa in loo baahan yahay khibradiisa iyo aqoontiisa awalna safar buu ku maqnaa Caydiid soo dhawow gurigaagii baan ku soo dhaweynaa safarka ka maqnayd oo ah taliyaha qaybta booliska gobolka Sanaag gaashaanle sare Cabdirasaaq Faarax Warsame aad iyo aad bay guul noogu tahay maanta annaga oo ku soo dhaweynayna dhulkiisii hooyo awalna cid walba sida u shaqayso waa la ogaa si qurux badan oo sharaf leh ayuu u shaqayn jiray oo u garanayay in Soomaalinimadu ayan kala go'ayn maadaama qofku xusuusan yahay meel kasta uu joogo Soomaaliya inay Soomaali tahay gaashaanle sare Caydiid Axmed Nuur oo ka soo goostay ciidanka Soomaaliland ayaa gabagabadii ka warbixiyay sida uu ku soo gaaray Puntland runtii anigu sidaad ii soo dhaweyseen iyo sidaad ii magacdowdeen iyo qiimaha aad ii yeesheen Soomaalidu waxay tiraahdaa saas u taqaan waa si lagu yaqaan aad baan idinka mahad celinayaa waan idinka filanayay inta ay ka badan baynaad oranaysaan inta haddaan uga sii gudbo safarka iyagu haddii inta aan ka soo jeedno waa inta aad garateen siyaasaduna kulliba marba xoogaa sibay tahayo in dhaweyto waa run oo xagga galbeedkaan u badnaa oo jiray ugumana horreeyo dee wax dhinaca aadahe waa la soo wada taaftay marka aniguna maanta ayaa dareenkaygu siiyey inaan xagga u soo gudbo anoo waxyaalo badan arkay oo ah danta guud inay ku jirto sida midnimada ah oo maxaan ku idhaahdaa looga guurayo maanta qoqobada iyo maxaan ku idhaahdaa siyaabaha maxaan ku idhaahdaa danaha gaarka danta guud in loo gudbo inta ka bacdi haddii aan ka ruuxi kala farwaraysi iyo maxaan ku idhaahdaa xog waran waa inoo fadhi iyo is aragyadeena insha Allah maxaan ku idhaahdaa salmiga aan fariisan doono haddii safar baan ahay aad baan idinka mahad celinaya wasalaam